hore waxaan ka mahadcelinayaa kasoo qaybgalka munaasabadan Afurka waxaan ka cudud daaranaynaa intii Afurka gaabis ku jirta ama ka dhiman waa ka cudud daaranaynaa intaas kadib walaalayaal marka hore waa bishii barakeysneed waliba kala bar ku sii dhow caawe waxaan leenahay dambi dhaafkeedii iyo khayrka bisha barakeysan Allah na siiyo Allah inoo dambi dhaafo dambiga waalidkeena Allah dhaafo ummadda muslimiinta ah dhammaan meel ay joogtaba nasri iyo khayr Allah siiyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed dadka reer Galmudug si gaar ah waxaan leenahay abaarta Allah ka qaado colkan Allah ka baxsho ay ku hayaan dhibka qawaarijta ugu daran yahay midnimo iyo wadajir in Allah siiyo khilaaf iyo kala qaybsanaan Allah naga ilaaliyo intaas kadib waxaan leenahay sidii horeba aan dhowr jeerna isu farnay runtii halkana culimadu ay uga sheegtay dadka sooman danyarta ah oo bishii barakeysanada Ramadaan na joogo sooman abaar runtii saameynteeda leh oo guud ahaan Soomaaliya ka jirta gaar ahaan Galmudug ka jirtana ay ugu darsan tahay hal la isgargaaro hal la iscaawiyo dadka loo sabafalo dal iyo dibad meeshii la joogaba waxaan leenahay hal soo gargaaro dadka xaaladaas iyada ku jira sida iyaduna noo ahayd joogtada noo ahayd ama ay hawsheedu noo oola jirtay waxaa socda dagaalkii lagu hayay ama lagu jiray ama dalka looga xoreynayay kooxdaas qawaarijta ah oo dhibaatadeedii ay socoto iyadana dadka waxaan rabnaa inay dagaalkeeda iyo iska xoreynteeda si midnimo ah wadajir ah looga qayb qaato culimadu doorkooda qaataan bulshada qaybaheeda kala duwan doorkooda qaataan loo wada jiro cadowgaas aan waqti iyo meel ay wax ku dhaafayaan aysan jirin oo bishii barakeysteen aad ogtihiin dhibaatada ay dalka ka wadaan oo dagaal iyo dhiigga muslimiinta inay daadiyaan ay u tafaxaydan yihiin horena ay dhaqankoodaba ka mid ahayd oo waxyaabihii ay diinta islaamka ku bedelayeen ama ay ku gabanayeen beenta uga sheegayeen ay ka mid ahayd inay bisha Ramadaan shartooda iyo shidadooda sii badiyaan si gaar ah waxaan leeyahay culimada doorkiinii waa qaadateen ku dadaala oo runtii dardar geliya dadka in loona duceeyo ilaahay loo baryo shartooda ilaahay inuu naga qaado iyo cid kasta oo sideedaba wax bulshada kala qaybinaya ama dhibaato u geysanaya ku howlan in maaragtay iyadana intii hanuunsamaysa ilaahay loo baryo wixii aan hanuunsamayn hanuun u qorayna in la yidhaahdo shartooda Allah naga kaafiyo taasna intaasaan isleeyahay culimada iyo dad bulshadoo dhan baa bishaas barakeysan qawaarijtana si gaara ilaahay subxaanahu wa tacaala Soomaaliya iyo meel kastoo dad muslimiin ay ku dhibayaan in ilaahay ka qaado waa gabaabsi sida hadda aan ognahay ciidan uma soo kordhinay waa nafla caari waxa ay wadaan